السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أنا دقي جنال كداون يسينا مركز تميدين شيء جاي. أنا دقي وفيشيا. هذا نقوم سنتين أيامتان كرا يوسف على سبسكرايب كي واتكي مع مقايا. ما أنت نروح قصة إلى سو ذاكتي ولا الأدي وقاليا. وحين هذا هو حيقول على قصة. إن شاء الله قصة هذا كومنتي هذا عفرتها قصة دي هو الرئيسي وأنساق على دوره. إن شاء الله يوم. taladii aan siiyay waa israaci doonaa markay ila socdaniyo walaal baad ii jecelahay sababtoo ah suugiga waxaad igu gaarsiiseen subscribe aqligayga u diiday ku mahadsantiin gabadha waxay leedahay assalaamu calaykum may boqorkayga aad baan ku salaamaya walaashayda qaaliga wa calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh boqoradayda waan ka qaaday waxay leedahay salaan dheer kadib waxaana ahay hadda 20 jir waxaana haystaa hal cunug alxamdulillah waxaana isoo martay xilligan gabadh ahaa nolol xanuun badan waxaan guursaday anigoo ah 18 jir wiil ina habaryarteeya isla markaasna aanan jacayl u qabin waa la igu daray jacayl wax jacaylana uma aanan qabin waxaa dhacda markii la ii guursaday inaan iskala noolaado balse aanan ku haysanin wax daryeel ah maalin maalmaha kamid ahna waa kala tagnay waxaanan guursaday nin kaleeto oo aad u wanaagsan sharaf iyo dhaqan wanaagsanna leh laakiin jacayl umaanan qabin oo waxaan jeclaa kii hore oo ii dhibaateeyey weligay qof bilaadana umaanan ooyin weligeena qof bilaadana umaanan baahanin laakiin markii aan u imaado oo aan dhaho waan ku jeclahay wuxuu igu jawaabaa ka xisho aniga hadda waxaan ahay xaasle markay walaalay hadalkaad igu leedahay ka fiirso adigana waxaa taa qof marwaa laakiin aniga waxay haysato naftaydu naf bay rabtaa naftuna naf kale rabtaa kan aniga qabo kuma qanacsani waxaan jeclahay nin kaleeto marka waxay ku leedahay walaal ila tari insha Allah commentiyadiinana way akhrisan doontaa aniga waxaan ku yiri markay diinta islaamka ma qabto in naag la qabo ay in kala tajaclaan taas waa xaqiiqo wallahi waa wax aad looga xumaado sababtoo ay waxaan dareemayaa marwaa tahayba ilaahay uu ka xaraantinimeeyay nin kaleeto كومنتيدا waxaa ugu horeeya Aisha Abdulqaadir waxay leedahay assalaamu calaykum ka samir qof balwad leh haddana ku yiri waan bartay mana dayn karo marka gabadhaas waxay ku leedahay ka samir maxamed xamdi queen waxay leedahay oo walaal Muhammad walaal Maxamed waan ka xumaa qisada xanuunka badan laakiin waxaan ku dhihi lahaa wadankii ku celi niyadaadana ka bixi oo iska dhaaf xiriirkeedana meeshaas ku soo jar maanta walaal Mira Ahmed waxay leedahay dhab ahaantii waa qisa xanuun badan tanana waxaa ah gabadha reerkeedii inaad u celiso una sheegto inay balwada iska dhaaf